Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. dadkayga aan jeclahayow, haddii ay tahay markii kugu horeysay ee channelkeena aad soo booqato, fadlan nagu taageer, share, like iyo warcelin, dhiirigelin ayay noo tahay. ka hor inta aynan baadi goobin guusha iyo wadooyinka loo maro guusha ama aynan ogaan, waxa mudan in aynu ogaano farqiga shaqo ee u dhexeeya kuwa guusha gaaray iyo kuwa aan guuleysan. Kuwa guuleystay waa dad sideenna oo kale ah, laakiin waa kuwa ku tashaday naftooda, ka bartay casharo aan jaamacadaha iyo iskoolaadka lagu baran khaladaadkooda. waa kuwa leh khibrado guuldaro, yaqaan sabirka, isbarayna hawlkarnimada, hal adayga iyo horsocodka, si walba oo ay xargaha noloshu gadaal ugu soo celiyaan. waa kuwa waqti geliyey samaysashada albaab ay fursadu kusoo gargaraacdo waddo kasta, kadib dhicid, kufid, sarajoogsi iyo sabir gaaray halka ay higsanayeen. kuwa guuldaraystayse waa kuwa aan u dhug yeelan hadalka. haddii aan ku niraahno maanta, qofku waa inuu adeegsado caqligiisa, iskuday sameeyo, isbaro waxa uu rabo inuu gaaro, khaladkiisa uu wax ka barto, iyo oraahyo kale oo muhiim u noqon karaya, waxa ay noogu warcelinayaan, waan daalay anigu, waan sameeyey intaas oo dhan, laakiin ma karin inaan guulaysto, waa dhacay. waxa ayba qaybtood sugayaan wax loo maleeyo mucjiso si ay u noqdaan kuwa guusha habeen u seexda, arooryan oo soo toosa. haddaba ogow 8 qodob si aad wax badan uga ogaatid guusha. Number 1, fursadu ama kanshadu halkee ayay jirtaa? qaybo badan oo dadkeena waxa ay si fiican ugu diyaar garoobaan guusha iyaga oo xamaasadaysan, wax fiicanna sugaya. laakiinse haddii aad weydiiso maxaad u bilaabi lahayd shaqada guusha u baahan tahay, waxa ay si degan kugu sheegayaan in ay sugayaan fursadda. haddaba waxa aan ugu leeyahay cod dheer, fursadu ma ahan wax socda oo halka aad joogto kugu imanaya, mana aha mid fadhiga lagu arko iyada oo aan loo dadaalin mooye. haddaba adigu garo oo jeexo waddada aad u mari lahayd, deedna horay ugu soco, fursaddu iyada iskaa tusaysa. abuur adigu fursadda, deedna ka faa'iidayso. waa sida dadka guulaysta ay sameeyaan. Lambar 2, guulaysan maayo. kuwa ayaa raba inay sii ogaadaan inay guulaysanayaan si ay u bilaabaan. waxa ay rabaan in ay wax kasta ka hor bilowga ogaadaan. waxa uu rabaa inuu sii calaamadiyo wax kasta isagoo aan bilaabin. waxa uu milicsanayaa inuu helo kharibidda guusha iyo wax kasta oo dhici kara, si uu ugu sii diyaar garoobo wax kastana ay u ahaadaan mid saxan oo sida uu u qoray u dhacda. haddii kale baddaasi kuma jiro. haddaba ogow, waddada guushu waa mid leh isbaarooyin badan oo kadis ah. waxaa loo baahan yahay mar kasta inaad ahaatid mid digtooni leh, kalsooni leh, garaad fiicanna qaba, si aad uga gudubtid, horeyna aad uga socotid. mararka qaarkood way fiican tahay in aad wax sii rajaysid, laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya baqdinta iyo rajada ama filashada. farqi weyn weeye u diyaargarowga dhacdada iyo baqdinta. xitaa haddii aadan aqoon waxa dhici kara, waxaa loo baahan yahay inaad digtoon tahay. laakiin haddii ay baqdintu ku saamayso, ogow waxa aad arkaysaa naftaada oo ordaysa, mana xaqiijin kartid yoolkaaga. Lambar 3, baqdintu waxa ay noqon kartaa dedejiyaha guusha. noloshu waa mid leh caqabado badan, waxaana lagaa rabaa mar kasta inaad rumaysan tahay guusha si aad uga garhesho caqabadaha, inaad u sabartid oo aad u dhabar adeegtid si aad uga gudubtid. qaybtooda waa ay kugu adkaan karaan, waxaana aad uga baqdin qabi kardhaa in aad guuldaraysatid. haddaba waqtigaasi ogow, baqdintaadu inaanay ahayn dedejiyaha gadaal uguradka, balse ay tahay daliil in waxa aad rabtid ay u baahan tahay in yar oo jariska xooris ah, indhe adeegna leh. waxaana ay la micno tahay inaad u baahan tahay wax badan si aad u qabatid ugana baratid. Lambar 4, dulqaadka iyo caajiska. qayb badan ayaa jira oo isku qalda sabirka iyo caajiska, waxaana ayba moodayaan caajiskooda inay yihiin kuwo sabraya. dhab ahaantii waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya dulqaadka ama sabirka iyo caajiska. inaad dulqaadatid ama aad samirtid waxa ay la micno tahay inaad qabanaysid wixii lagaga baahnaa, aad ku dhacdid, isku daydid, haddana aad kala kulantid caqabado badan, adigoo og waddada guushu inay fog tahay, balse u sabraya, u dulqaadanaya, siina wadaya shaqada ilaa dhammaadka. balse caajisku waa inaad dhacdid mar, deedna aad iska nagaato adiga oo sugaya fursadda waqtiga ay ka imanayso. kolka ay ahaato waqtigii ama fursaddu caynka aad sugaysay mise ka adag sidii aad moodaysay, haye mar labaad aad kursigaaga ku laabatid, dhabtuna waxa ay tahay in aanay fursaddu iska iman. Lambar 5, waqtigu waa sida sayfta oo kale. waqtiyada hore waxa ay ahayd amintu sida sayfta oo kale, balse iminka waa sida gantaal nuclear ah oo kale. haddii aad dayacdid, wax kasta waa ay kaa lumayaan. haddii aad hagaajisana, sida hore cagsigeeda, wax kasta waa ay hagaagayaan. waxaa nasiib darro ah inaad aragto saaxiibo jecel guusha, waxa ay isweydiinayaan sidee ayaad u guulaysan kardhaa, iyaga oo iska sugaya jawaabta. maalmo, usbuucyo, bilo, xitaa sanado ayay noqon kardhaa inta ay dhowrayaan warcelinta saxan. waqtiga badan ee ka lumaya uma jeedaan, waxa ay isku arkaan inay wax fiican qabanayaan,
isla sidaa oo kale ayay su-aasha marar kale jawaabteeda u sugayaan. Ogow waxa aad qaban kartid maanta kuma qumana caawa iyo berida soo socota inaad ka fakadid. Lambar 6 isla qumani. qof ayaad arkaysa kolka uu ku daalo nagaashaha iyo fursadda uu sugayo dhowristeeda uuna waayo wax warcelin ah, waxa uu bilaabayaa inuu dadka hiifo. waxa uu u haystaa dhammaan dadka kale oo dhan in ay isaga dulmiyeen, wax kasta waxa uu u haystaa in ay hagradeen. haddase ogow ma ogo isagu inuu yahay kan hagraday naftiisa, dulmiyeytiisa. garo qofna inta uu ku yimaado isku xil saari maayo guusha aad rabtid inuu ku gaarsiiyo, midna ma karo inuu ku siiyo koob biyo ah kolka aad cabtidna aad gaaraysid guusha. balse xaqiiqadu waxa ay tahay waa adiga qofka heli kara guusha ka maqan naftaada, waa adiga kan ku tallaabsan kara hore u socod. guushu waa ereyada dadaalka, isku dayga, kacakufka iyo shaqo adag oo isu tegay. Lambar 7 ha sugin dhammaystirnaan. dadka qaarkood waxa ay jecel yihiin iyagoo aan bilaabin isbeddel inay noqdaan kuwo dhammays ku ah wax kasta. haddii aad tahay dhammays uma baahnid guul, sababtoo ah waxaad haysataa wax suuragal ma aha inaad baratid wax kasta koor inta aadan u kicin baadigoobka guusha. garo bilowga waxa uu yahay yoolkaagu, deedna bilow waqtiga iyo inta aad ku guda jidho waddada yoolka waxaad arki doontaa wax badan oo aad la yaabtid, wax badan waad ka yaabi, fahamo badanna waad fahmi. ugu dambayntana waad gaaraysaa yoolkaaga. keliya aqoontu ma ahan, balse sidoo kale tijaabada. qayb waxa ay yaqaaniin wax badan laakiin waxba guul ma gaarin, qayb kale waxa ay yaqaaniin wax yar laakiin guulo waaweyn ayay gaareen. Lambar 8 mas-uuliyadda. waxa waajib kugu ah inaad dhabarka u ridatid mas-uuliyadda. wax kastoo aad qabanaysid in aad qaadatid mas-uuliyadda go'aanka, deedna aad qaadatid mas-uuliyadda natiijada, sababtoo ah adiga keliya ayaa ka mas-uula noloshaada. ha ka yeelin kuwa kale inay kugu hagaan waxa ay rabaan, sababtoo ah waxaad waayeysaa madax bannaanida naftaada. sidii inaad ahaato mid fadhiya kursiga gadaale ee gaariga una ogolaatid kuwa kale oo dhan in ay wadaan gaariga. mid kasta oo ka mid ah waxa uu kuu dhigayaa halka uu rabo, adiguna gabagabada ma gaaraysid halka aad ku riyootay inaad gaartid. fadlan nagu dhiirigeli subscribe iyo share, deedna ka hel channelkeena taariikho dad nolosha guula ka gaaray iyo warbixino xiise leh. mahadsan.